اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد dhacdo aad iyo aad u xanuun badan qof kasta oo muslima اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله من الشيطان وجه الرجيم بسم الله دنيانا الرحمن الرحيم لكن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها المسلمون وأيها الإخوة والأخوات maanta kelimadaydu waxay ku saabsanaan doontaa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan qof kasta oo muslima qalbigiisu iimaan uu ku jirana goorta dhacdadaas la xusuusiyo ama uu xasuusto ama uu aqriyo uu aad iyo aad uga xanuunsanayo wallahi waa dhacdo aad u xanuun badan dhacdadaas ayada ee xanuunka badan oo aanu doonayno inaan iimaankayaga aan ku siyaadinno goor iyo waqti aan u baahannahay inuu iimaankayagu siyaado waqti aan u baahannahay qalbigayaga inaannu dib u noolayno waqti aannu u baahannahay quluubtayada inaannu tirtirno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan dib u xusuusinno ilaahayna aan u celinno subxaanahu wa tacaala dhacdadan ayada ah wax badan bay ka qaadan doontaa nolosheenna iyo xayaatadeenna inta ka hadhay biidnillaahi subxaanahu wa tacaala wadakir fa ina adikraa tanfacu almu'miniin waxaa laga yaabaa inaad i weydiiso dhacdadaasi xanuunka badan waan u baahannahay inaan maqallo ee haddanana iimaanka noo siyaadinaya iimaanka iyaga kordhinaysa nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markii uu istaagay xajkii ugu dambeeyey ee uu xajiyey ee la dhihi jiray xajatulwadaac xajkaasi gadaashiisa isla markiiba waxaa soo degay qowluhu subxaanahu wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaas ayada ah oo ilaahay uu ku tilmaamayo subxaanahu wa tacaala maanta ayaan idiin dhammaystiray diinkii idiin dhammaystiray maanta ayaan idiin dhammaystiray aniga nicmadiinnii idiin dhammaystiray oo nicmatu lislaam waaliimaan aayaddaa markii ay soo degtay waxaa ooyey abu bakr radia allahu tacaala canhu wa ardaah abu bakar ayaa ooyey markii la yidhi maxaad la ooyeysaa wuxuu yidhi aayaddani waxay tilmaamaysaa geerida nabiga calayhi asalaatu wassalaam kadibna nebi moxamed wuu soo noqday 9 maalmood kadib sida ay mufasiriintu qayb ka mida tilmaamayaan waxaa soo degtay qowluhu subxaanahu wa tacaala waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah huma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun dadow waxaad ka baqdaan maalin dhexdiisa la idiin soo celin doono alle xaggiisa subxaanahu wa tacaala kadibna naf walba lagu abaalmarin doono wixii adduunyada ay ku kasbatay ayadoosan ilaahay usan dulmiyaynin ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo wama allahu bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo ilaahay addoommadiisa waxba kama nusqaamiyo xadgudubna kuma sameeyo rabbi subxaanahu wa tacaala dadku ayaga ayaa naftooda dulmiya walaakina annaasa anfusahum yadlimuun kadibna nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ku bilowday xanuun ayaa ku bilowday mar alle markuu xanuunku ku bilowday wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan soo siyaarto qubuuraha uxud saxaabadii nabiga maalintii uxud shahiiday ee xamse ibni cabdilmutalib uu ka mid ahaa ayaan doonayaa inaan qubuurtooda soo siyaarto
nabi maxamed waa tegey sala allahu calayhi waaalih wasalam qubuurihii ayuu dul istaagay wuxuuna ku yidhi assalaamu calaykum ya shuhadaa uxud antum asaabiquun wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun salaan dushiinna ha ahaato dadkii qubuurtii dadkii maalintii uxud shahiidayow shuhadada ahaayow nabadgeliyo iyo naxariis dushiinna ha ahaato waad naga hormarteene annaguna in shaa allahu oo litabarug ah gadaashiinna ayaanu ku jiraa raadkiinna ayaanu soo haynaa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka uu ka soo noqday ziyaarada gaaban ee qubuurta uxud suu sagootinayey haddana waxaa ooyey abubakar haddanana waxaa ooyey nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed ayaa ooyey kadibna nabiga waxaa lu yidhi maa yubkiika yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo maxaa kaa oohinaya waa mowqif aad u xanuun badan weeye saxaabadii nabiga la socotay sala allahu calayhi wasalam iyo nin kasta oo maanta loo sheego oo xabiibka jecel calayhi asalaatu wassalaam nebi moxamed jecel sala allahu calayhi waaalih